رئيسul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa magaalada Dhuusamareeb si rasmi ah uga daafuray shirweynaha dib u heshiisiinta Galmudug ay ka qayb galayaan erga matalaysa dhammaan reer Galmudug. Ra'iisul wasaaraha oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo guddiga qabanqaabada shirweynaha ugu mahadceliyay dadaalkii dheer ay geliyeen isku keenida bulshada Galmudug ayaa sheegay in shirkan gobol xar u yahay dhismaha Galmudug oo loo dhan yahay kana shaqeynaya danaha Galmudug kana qayb qaadanaya horumarka guud gaar ahaan dalka. Mudane Xasan Cali Khayre ayaa sidoo kale u mahadceliyay madaxweynaha Galmudug ahlu sunna dhammaan bulshada reer Galmudug ciidanka amniga sugay iyo dhammaan cidii gacan ka geysatay in geedi socodka dhismaha Galmudug oo dhameystiran la gaarsiiyo heerka hadda uu marayo wuxuuna shirku rajiyay inuu noqdo meel guul ku dhamaada. waa ilaahay mahadiis in caawa aan halkan isugu nimaadno inagoo ku dhow 1000 qof oo ku sugan magaala madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb kana wada shaqeynayna sidii loo dhameystiri lahay geedi socodka dib u dhiska Galmudug. waa idinkaga mahad celinayaa ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen iftiinka halkan ka muuqda wuxuu ahaa mid laga fikiri karo kaliya inuu dhici karo 3 ama 4 bilood ka hor. waxaan halkan uga mahad celinayaa guddiga dib u heshiisiinta oo soo qaban qaabiyay shirkan oo shaqo aad u adagna soo qabtay xilliyadii aan soo dhaafnay. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa wasiir Sabriye iyo wasiir Weheliye iyo dhammaan shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha oo shaqo weyn soo qabtay bilo badan iyo waqti badanna soo geliyay hawshan caawa u fadhino. waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa culamaa diinka ahlu sunna kulligood Sheekh Maxamuud, Sheekh Ashcari iyo Sheekh Shaakir oo maalintii aan halkan nimid ilaa hadda na garab taagnaa dadaalkiisa iyo dulqaadkiisuna uu sababta weyn u yahay caawa inaan halkan joogno. waxaan aad idinkaga codsanayaa in si mugle loogu sabciyo Sheekh Shaakir. waxaan mahad u celinaynaa wiilashii dhalinyarada ahaa iyadoo aan inteena kale ku dhiiraday inay xoreeyaan deegaanka. 8 wiil oo Soomaaliyeed oo reer Galmudug ah ayaa bilaabay inay cadawga ka xoreeyaan halkan. dadaalkoodii ayaan halkan ku fadhinaa. intii dhimatay oo kamid ahayd 8daas wiil Allah u naxariisto. qaar kale oo kamid ah oo nool 8daas oo anigu la kulmayna waxaan leeyahay abaalkii waa la idin hayaa. intii kale oo qayb ka ahayd oo iyaga la sheegina waa mahadsantihiin. waxaan halkan ammaan iyo sharaf uga soo jeedinayaa madaxweyne Xaaf oo bilaabay dib u heshiisiinta caawaan halkan u fadhino oo qaatay go'aan geesinimo leh markii uu ku baaqay in Galmudug la mideeyo ayna ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah. nalama jooga caawa madaxweyne Xaaf laakiin dadaalkii uu soo maray inuu Galmudug isu keeno iyo baaqi uu ku baaqay in doorasho la qabto ayaa iyadana sabab u ah inaan caawa halkan joogno. waxaan leeyahay madaxweyne Xaaf waa mahadsan tahay dadaalkii aad soo gelisay reer Galmudugna abaal ay ku hayaan. idinkana waxaan idinka codsanayaa isagoo naga maqan inaan si mug leh isagana sacabada isugu geeyo. waxaan u mahad celinaynaa ciidamada Soomaaliyeed xoogga dalka kuwa la qarameeyay iyo kuwa horeba oo aad aragteen siday uga shaqeynayaan amniga magaalada iyo gobolka oo u diyaar garoobaya si aan idinkugu bishaareeyo inay bilaabaan howlgallo waqti dhow si looga xoreeyo cadawga dhammaan deegaanada Galmudug haddii Ilaahay yiraahdo. waxaan u mahad celinaynaa ciidamada Soomaaliyeed xoogga dalka kuwa la qarameeyay iyo kuwa horeba oo aad aragteen siday uga shaqeynayaan amniga magaalada iyo gobolka oo u diyaar garoobaya si aan idinkugu bishaareeyo inay bilaabaan howlgallo waqti dhow si looga xoreeyo cadawga dhammaan deegaanada Galmudug haddii Ilaahay yiraahdo.
waxaan u mahad celinaynaa ciidamada walaalaheena amisom oo iyaguna nala jooga magaalada oo nagala shaqeynaya si aan uga maray dhalala dadaalkan hadda socda. waxaan mahad gaar ah u celinayaa xildhibaanada labada aqal oo nala soo bilaabay geedi socodkan, nala maray meel walba, caawana halkan fadhiya badankood. waxaan leeyahay waad gudateen waajibaadkii ay idinku lahayd deegaankiina oo laydin soo doortay. waxyaraa dhiman u dhabar adayga oo nala dhammaystira. waxaan u mahad celinayaa ganacsatada reer Galmudug oo qayb ka ahaa dadaalkan oo iyaguna yimid magaalada dhowr mar oo nagala shaqeeyay hawshan iyada ah. waxaan marna la ilaawi karin doorkii dhalinyarada reer Galmudug ay ka qaateen geedi socodkan. shirweynaha ayaa intuu socdo waxay reer Galmudug ugu tashan doonaan dhismaha dowlad goboleedka Galmudug iyo qabsoomidda doorasho xor iyo xalaal oo horseeda in maamulka ay dhisanayaan uu noqdo maamul u hoggaansama wadada horumarka, xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalka Soomaaliya. Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa bishii Juun ee sanadkan waxa uu deegaanada Galmudug ka bilaabay dadaal gundhigiisu oo ahaa guulgaaridda geedi socodka qorshaha reer Galmudug ay ku dhisanayaan dowlad goboleed dhammaystiran oo loo siman yahay, waxaana dadaalkaasi soo dhaweeyay beesha caalamka, reer Galmudug iyo bulshada Soomaaliyeed oo dhan. Faysal Cadow, Horseed TV, Soomaaliya.